بسم الله الرحمن الرحيم waxaan la kulmay oo aan wareysi ka qaadi doona hadii alla idmo Xasan Maxamed Cali oo ku magac dheer Xasan Gaafadhi isla markaana ah afhayeenka xisbiga kulmiye su'aasha ugu horeysa ee aan mudane ku weydiinaya waxay tahay markii aad siyaasadda go'aansatay inaad gasho go'aankaas sidee baad u qaadatay بسم الله الرحمن الرحيم كيس واد مادسن tahay waana su'aal muhiim ah aniga marka hore inta badan waxaan ka shaqeynayay hay'adaha samafalka hay'adaha samafalka inta waxay mashaariic wax qabad oo horumarineed iyo kuwa emergency ah iyo kuwa gargaar degdeg ah intaba way fuliyaan muddo dheer markaan ka shaqeynayay waxaan arkay inta badan dadka xukuumadda ama fadhiya xafiisyada fadhiya iyo bulshadan ku shaqaale horumarka ku shaqaale siibana hay'adaha ay ka shaqeysaa xagga aragtida iyo fikirka in farqiyad weyn ay u dhaxayso mararka qaarkoodna ay colaad dhexdooda ay ka dhalato taasoo inta badan salka ku haysa faham la'aan laga fahamsan yahay horumarinta guud ahaanba dad badan oo aan background u lahayn ama aan khibrad u lahayn horumarinta ayaa inta badan xafiisyada buuxiya oo camira dadkaasuna waxay inta badan uun ka yaqaanin miisaaniyadda dowladdana lacago fara badan baa mara lacagahaas waa lacago caalamka way ugu talagaleen in dhalinyarada baahiyo ka jiraan in wax laga qabto waxaanay u baahan tahay wixii kari karaya inay ka faa'iideystaan lacagahaas oo qaarna kuba waajahan yihiin dalal qaarna lacago iska deldelan oo lusha oo ida la ciidu tartami karta ay qancin karta ida lacagta haysa ay wax kala soo hari karto waxaan markaa go'aansaday haddaan siyaasadda iyo horumarka isku wadin had iyo jeer dhantaalan ayaa ka imanaya horumarka waddanka ka imanaya waxaan arkay dadkii aqoonta u lahaa waxaas ama mashaariicda horumarinta aqoonta u lahaa inaanay siyaasadda ka maran yihiin oo ka maqan yihiin kana shaqeeyaan dhammaantood dhul ay mushahar wanaagsan ay ka qaataan laakiin ay ka wareegaan ama ka maagaan inay waqtigooda ay siiyaan inay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda ee mushaharka yari uu yaallo inay waqtigooda siiyaan oo ay wax ka bedelaan aragtida taalla xafiisyada oo ay aqoontooda uga faa'iideeyaan sidii siyaasadda waddanka lagu hagayo iyo mashaariicda waxqabadeed laysu waafajin lahaa ama gacan loogu wada kaxayn lahaa dabeedna waxaan go'aansaday in aniga iyo wixii ila fikirhiba in aanu aasaasno urur iyadoo aanu ka faa'iideysanayno xilladii ururada la furay inaanu urur siyaasadeed aasaasno urur siyaasadeedkaasuna ujeedadiisu ahayd dadka wixii isku fikira siibana aqoonta horumarineed leh iyo tu siyaasadeedba in lagu mideeyo halkaa si ay dabadeedna xisbi ballaadhan oo ay aqoonta iyo horumarintu ay hagto ugana faa'iideeyaan mujtamacooda iyo xukuumaddooda iyo bulshadooda inaanu samayno taas ay ku dhalisay waayahay baahidii kugu dhalisay inaad siyaasadda gasho waan fahamnay iyo maxaan idhahdaayey dhammaan duruufihii jiray ee markaa kugu kalifayay inaad go'aan ka qaadato go'aanka markii aad qaadatay sidaad sheegtay waxaad aasaastay urur siyaasadeed ururkaas sidaan ka warrayay waxaa la odhan jiray rays ururkaasi wuxuu ka qayb galay doorashooyinkii dowladaha hoose ee xisbiyadu ku soo baxayeen gobolladii ururkaagu kaalinta koobaad ka galay ama kaalmaha hore ka galay kuweebaad iga tilmaami kartaa ururku kaalinta koowaad wuxuu ka galay tog dheer
kaalinta labaadna wuxuu ka galay Sanaag, kaalinta saddexaadna wuxuu ka galay Saaxil. duruufo badan oo adagna way naga hor yimaadeen. run ahaantii waxaanu qaban kari lahayn noomay suurtoobin inaanu qabanno, iyadoo culaysyo badan iyo duruufyo badan ay naga hor yimaadeen. laakiin dadaal badan oo aanu muujinnay, waxaanu kasabnay in aanu dalka intiisa badan aanu gaadhno, aanu kalsooni ka kasabno. ilaa haddana waxaa ururkaas dadkii ka soo baxay ay qaarkood mayor ka yihiin gobollo waaweyn sida gobolka Awdal, degmada Boorama, gobolka Togdheer, degmada Burco, gobolka Saraar, degmada Caynaba, degmada Garadag. intaaba mayoradu waxay ka soo baxeen ururkii rais bay ka soo baxeen. xildhibaano aada qaali u ah ayay ahaayeen dadkaasu. marka dad tayo leh ayaanu anagu sharaxaynay, waana taa ka muuqata iminka inay ka muuqdaan gobolladii iyo degmooyinkii doorashadu ka dhacday. intii aad ku jirteen ololaha u tartamayseen inaad noqotaan xisbi, siyaasaddana waad ku cusbayd. kolley asxaabtaada iyo saaxiibadaana waxa laga yaabaa inay siyaasadda ku cusbaayeen, inkastoo dee dad khibrad u lahaynaa kolleyba ay ku jireen. maxaad iga tilmaami kartaa caqabadihii ugu waaweynaa ee ugu adkaa ee idinka hor yimaada bulsho ahaan iyo siyaasad ahaanba? horta marka hore qofku haddaan hore siyaasadda loogu oqoon way dhib badan tahay in uu sameeyo saameyn ballaadhan uu sameeyo. dhinaca kale markaad ka eegtana waxaa jirtay in dadka laftoodu ay dad badanoo inta badan soo taagnaa laga daalay, qofka cusubina uu loo arkayey inuu jaanis cusub yahay. marka waxay ku xidhan tahay fariinta aad gudbinayso iyo qaabka aad u gudbinayso iyo barnaamijkaaga waxqabadeed ayay ku xidhan tahay. kalsoonida dadkaada iyo dadka tiimka aa wada shaqaynaysaan ayay ku xidhan tahay, guushaadu ay ku xidhan tahay. waxaan aada iyo aad aan ugu kalsoonahay in muddo gaaban inaanu maxaan ku rahdaye culays ballaadhan kusoo kordhinay saaxaddii siyaasadda iyo tartankii ururadii markaa jiray iyo xisbiyadii jirayba. aadna uu uga muuqday, ururkaas uu aada uga muuqday. waxaanu jeclaan lahayn inuu soo baxo. aanu aada ugu rajo weyneyn tacabkii iyo dadaalkii aanu samaynay. waxa aanu rajaynaynay inuu soo baxo, laakiin saan hore kugu soo sheegay culaysyo iyo duruufo kale oo nala soo dirsay may suurto gelin. waxaan hadeerto arrinkaa dib uga noqonayaana ma jirto. marka waa jaanis, marna hadba waxa weeyaan waa bulshada ayay ku xidhan tahay, qofka cusub. mar waxa weeyaan waa jaanis uu qofkaasu uu isku iibgeyn karo. marna nuqsaan bay kugu noqon kartaa, waa wax dib kuu jiidi kara oo iyadoo lagu garan waayo lagu yidhaahdo muxuu aha. marka sida aad hadba aad jaaniska uga faa'iidaysato aad isu cabirto ayay ku xidhan tahay dadka aad iyo taageerayaasha aad kasbi kartaa. haddii ururkaagu guulaysan lahaa oo xisbi noqon lahaa, dabeetana siyaasadda hoggaanka waddanka, waxaan leeyahay hoggaanka waddanka u tartami lahaa oo ku guulaysan lahaa, xasanow maxaad jeclayd inaad mudnaanta koowaad siiso? horta marka hore mandaqad baynu ku naalaa aada iyo aada u guurguur badan. marka xagga nabadgelyada iyo ammaanka laga eego, taas waa tiirka koowaad oo wax kastaaba ay ka dheegmaan. in la adkeeyo ammaanka iyo xasiloonida, in la adkeeyo. ta soo raacdaa waxa weeyaan cid walba gaadhaa waa sharciga iyo kala dambeynta. bini aadamku inuu cadaalad helo weeyaan. qofku inuu cadaalad u helo ammaankiisa
adduunkiisa, naftiisa, horumarkiisa, baac mushtarigiisa, inuu cadaalad shaqada, inuu cadaalad helo, sharciguna shaqeeyo waa muhiim. dadka waxa gaadhana waa taa. dadka adduunkuna ma wada gaadho, shaqaduna ma wada gaadho, laakiin waxa gaadha waa cadaaladda. haddii shaqada cadaalad loo isticmaalo ama lagu qaato, dadka cadaalad lagu qaato, haddii maxaan ku rahay waxyaabaha manaaficda ah ee yaalla dadka loogu qaybiyo, cadaalad loogu qaybiyo, haddii waxbarashada iyo maxaan ku rahday waxyaabaha jaanisada waxbarasho lagu qaybiyo cadaalad, haddii caafimaadka cadaalad, wax waliba waxay ku jiraan cadaaladda. marka waxa weeyaan sharciga, kala dambeynta iyo cadaaladdu waxa weeyaan waa qodobka labaad. intaa wixii ka dambeeya waxa weeyaan waa in dhaqaalaha waddanka la kobciyo, iyada oo wixii khayraad ah dhulka yaalla laga faa'iidaysanayo, iyadoo adduunka yare aynu haysano loo jeedinayo sidii uu wax soo saar u samayn lahaa, innaga oo ka faa'iidaysanayna wixii aynu heli karayno loo sameeyo, la dhimo oo la yareeyo intii la kari karo waxa la soo dhoofinayo. wax badan oo ay tahay dhulka in laga sameeyo oo laga kasbi karana ay tahay in laga kasbo. la jiheeyo baac mushtarigeenna had iyo jeer ilaa iyo irbadda ka keena dibadda, oo loo jiheeyo in wixii ay samayn karayaan inay gudaha ka sameeyaan. cuntaa la beeri karaa, saliid baa la beeri karaa, waxaan ku dhahday waxyaabo badan oo la qabsan karo ayaa jira. warshado yaryar baa la samayn karaa. in markaa dhaqaalaha la kobciyo. wixii kale waxa weeyaan markaa in maxaan ku dhahday waxbarashada, caafimaadka, arrimaha bulshada iyo diblomaasiyadda iyo siyaasadda khaarijiga ah ee ku waajahan ictiraafka ayaa iyaguna soo gelaya. marka de way kala horeeyaan, way kala horeeyaan. sidaasaan filayaa inay nala ahayd oo programkeygana ku tiilay inaan u wadno wax u wadno. waxaan malaynaya inaan su-aasha intaa kaga jawaabi karaan. haddaan u gudbo waxaan u leexanayaa had iyo jeer si aad la socoto golayaasha siiba kuwii ugu dambeeyey ee deegaanka iyo kuwa baarlamaanka hadda in ay la doorto la sugayaba, waxaa soo xula qofka gelaya qabiilka, odayaasha qabiilka, isla markaana qabiilkaa soo doorta. marka haddiiba xubnihii golayaasha qabiil soo xulayo oo haddana soo dooranayo, shaqadii maxay xisbiyadu u furan yihiin? macnaha waa maxay xisbiyadu markaa iyagu waxay soo saarayeenba haddii dad kale soo saarayo oo soo dooranayo oo soo xulayo, xaggee bay shaqadii xisbiyadu markaa qabatay? maxay shaqadan iyagu u qaban waayeen? miyaanay iyagu lahayn, shaqadoodii ahayn? waa su-aal wanaagsan kaysow. horta bani aadankan aad arkaysaa dee meelay joogaanba sumaday kala leeyihin. sumadaasu noocay doontay ahaan kartaa. sumad qabiil bay ahaan kartaa, sumad diimeed bay ahaan kartaa, sumad midab bay ahaan kartaa, sumad gobol bay ahaan kartaa. dadku sumaday kala leeyihiin. sumadaha ay kala leeyihiin baana isu raacraacaan. marka de matalan maraykan oo kale de weligoodba nin cadun baa kursiga fadhiyi jiray ninkii madoobaa ka hor. ninkaana iminka de waad aragtaayoo dad allahuma salli calaa maxamed caddaana waa maanta waxay keentay in ay midabkoodii iyagoo ka xanaaqsanaa ninkaa madoobe ee meesha yimi, in maanta ay ku dagaalamaan, midab ku dagaalamaan oo ay ku keenaan nin ku keenaan. marka innaga mujtamaceenu mujtamac u samaysan qabiil weeyaan. waana wax ka soo dhashay biicaddeenii iyo nolosheenii reer guuraannimo ka soo dhashay. noloshii bandarka tiilayna qabiilkii uma lala soo galay. wax cusub oo ama qaab cusub oo dadku isugu xidhmi karo oo bedelayna ma jiro. cid ka shaqaysay oo qaabkan bandarka looga baahan yahay iyo qaabkii mujtamacu u dhisnaa, miyiga ugu dhisnaa, cid samaysa isbedelada samaysa oo juhdi iyo wacyigelin iyo maxaan ku dhahdaye feker ku bedeshana maynaan arag. marka doorashadeenu horta inta badan
waxay ku dhisnaanaysaa waa qabiil waa geedi socod gaabisa ayaa jira oo xisbinimo oo laakiin weli aan ka adkaan kii qabiilka ka adkaan horta duruufta marka jirta waa inaad la noolaatayo aad ku qanacsanaataa laakiin inaad waxyeeladeeda dhinto oo waxtarkeeda badiso ayaa muhiima haddii aanad markaa iska furfuri karin aanad ka baxsanaynin marka waxaan constituencyga la yidhaahdo matalan dee Yurubta aad joogto kale iyo la yidhaahdo ayaa inaga qabiilkii inoo noqday kaasaa kaliftay markaa inuu qofka murashaxahi uu dhabarka ku hayo qabiil dhabarka ku hayo doorashadu waxay ku xidhan tahay marna qofkay ku xidhan tahay marna jeebkiisay ku xidhan tahay iyadoo marnaba aan mar haddii doorashaba lasoo hadal qaado lacagina iyadu adduun waa inuu jiraa meel doonayaba ha ka yimaado ama qofka ha ka yimaado ama maxaan ku rahdaa cid kale ha bixisee doorasho iyo campaign iyo lacagi waa wax wada joogo oo wada socda caalamka meel kastoo ay ka dhacdo waxa lagu kala badiyaana waxa weeyaan waa campaignada iyo maxaan ku rahdaayey miidiyaha iyo waxyaabo ku cusub oo adeegsi cusub oo qayban ka qaata soo bixitaanka qofka marka waa khasab inuu qofku reer dhabarka ku hayo laakiin waxaynu u baahannahay mustaqbalka in la dhimo oo la yareeyo oo laga shaqeeyo sidii looga kaaftoomi lahaa qofku inuu qabiil dhabarka ku hayo la dhiso feker iyo mabaadii iyo qaab kale oo ay dadku isku raaci karaan oo ay ku midoobi karaan waa wax loo baahan yahay taasuna shaqo iyo aragti iyo ayay u baahan tahay dad isku mid ahoo ka shaqeeya waxaasoo isku fikra ayay u baahan tahay waa waqti dheer waxaa soo malaynaya akhirka in la gaari doono waxaa soo doorta sidaynu la soconno aynu isla qirayba qabiilka yaa soo xula doorashadiina iyagay ku xidhan tahay waxaynu ka warqabnaa marka qofka lasoo xulayo in lacag lagu soo xulo waxa ugu muhiimsan ee odayaashu ay qofka ku yidhahaan lacag ma haysata qofkii lacag haysta ayay soo xulaan xisbiyada u keenaan yidhahdaan kanaan wadanaa inta badan waxaynu aragnay dad badan oo bilaataya ah oo aan waxa loo soo xulaya ee xilka ah aan aqoonna u lahayn gudana karin oo ay soo xuleen xisbiyadu sideebay arrintaa ugu baraarugsan yihiin inay iska kala hufaan oo maxaan idhaahdaaye haddiiba aanay iyaguba noqon karaynin kuwaas wax soo xulaya laakiin sidebay ugu baraarugsan inay iska kala hufaan oo dad tayalihii soo baxo oo qofku hadduu qabiilku qof xun keeno ay ugu celin karaan horta labada dhinacba waa jirtaa waxaa laga yaabaa qof lacag lehna in lasoo xulo qof aan lacag lahaynna inay reerku ay soo xushaan labaduba waa wax dhici kara ta muhiimka waxa weeyaan tuu doonayaba ha ahaadee qofku tayo maleeya tayadaasu waxyaabo badan bay ku xidhan tahay xisbiyada horta marka hore dee codkaa muquuninaya mar haddii ay reerkii yihiin kuwa codka bixinaya waxaa qasab xisbiga ku ah in qofka reerku codka siinayo in lala shaqeeyaa qasab bay ku tahay haddii kale de mid aan reerku la shaqaynayno dabeedna cod aan helaynin haddaad doorato dee khasraan baad noqonaysaa laakiin waxa weeyaan in la adkeeyo waxaan ku idhaahdayey xusbigu tirada matalan waqooyiga hargeysi waxa weeyaan waa councilkeeda deegaanku waa 25 xubnood xisbiga haddii la yidhaahdo 10 xubnood ka badan ma soo sharxi kartid oo aan halkaa deer ay ka tahay inuu 25 kaba keeno waxa dabadeedna cidhiidhi noqon lahaa in xisbiga ayaa loo tartami lahaa inuu qof waliba 10 xubnood inuu wax ka helo laakiin waxa weeyaan waa 25 xubnood iyo 25 xubnood iyo waa 75 xubnood haddii xisbigana diido qofka wax laga yaabaa inuu ka kala tago laakiin haddii 30 xubnood lagu soo ururiyo waxa laga yaabaa inay cidhiidhi noqon lahayd qofku inuu xisbigu iska soo sharaxo waayo haddii aanu ahayn qofka xisbigu uu u baahan yahay marka sharciga yaallaa qayb ka ah in dad aan tayadoodu fiicnayn ay soo geli karaan marka in sharciga laftiisa dib loogu noqdaa muhiim waayahay xisbiyadiinu inta badan waxaa waqti badan gelisaan sheegidda dhaliilihiina inuu midba midka kale dhaliilihiisa sheego
maxay xisbiyadu waqti u gelin waayeen barnaamijkooda siyaasadda siday dadka uga dhaadhicin lahaayeen intay dhaliilahooda sheegidooda waqti gelinayaan? horta dee dhaliishu caalamka oo dhan waa lagu kala faa'iidaystaayo waa waxyaabaha lagu kala badiyay ka mid tahay. waanaad aragtay dee dhulkaad joogta reer galbeedka iyo doorashada iyo mararka qaarkood qofku si shaksiya buu qofka kale uga soo horjeeda uu uba weerara. laakiin inagu waxa wanaagsan wixii dhaliila in la sheego, wixii shaksi ah iyo wixii aflagaadahana laga dhowrsoonaado waa muhiim. tan labaad dee xisbiyadu program bay leeyihiin. annagu markaan dee ka hadlayo maanta xisbiga kulmiye program baa jira. programkaasu waa programkii hore oo maxaan ku dhahdaayey wixii lagu kordhin karayey lagu kordhiyey. marka imika waxa weeyaan waxa aanu ka hadli karnaa waxa weeyaan waa programkii hore sida u fulay. waxaanu iyona aanu daha furi doonaa programkii cusbaa shanta sannadood ee cusub ah oo ka dhashay kaa hore iyo wixii lagu kordhin karayey. marka waxa weeyaan iminka xilligan campaignka waxa aanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala programka xisbiga iyo waxa uu doonayo inuu qabto iyo wixii hore qabtay oo dee history u yaala taariikh u taala. inta badan waxaa dhacda dadka idinkala taageersan xisbiyadiina siyaasadda waxaa jira dad caadaystay ka hadalka qabyaaladda iyo cayda. inta badanna dadkaasoo xisbiyadu ama dhaleecaynayaan ama wax ka qabanayaan lama arag. xisbiyadu ma la odhan karaa markaa waa ka raalli caydaas iyo maxaan idhahdaaye aflagaadooyinka iyo qabyaaladda inta badan taageerayaashooda qaar ka mid ah ay shubaan? kolley anagu ma jeclin, raallina kama nihin, mana aha dhaqan hagaagsan. dad badanoo maxaan ku dhahdaayey aqoontooduba ay intaan la eg tahay horta iskaba jira oo waxay ka hadli karaanba ay reernimo iyo tahay aqoon intaa dhaafsiisan ba aan lahayn. haddana leh saameyn taageero leh ayaa jira. marka waa dhibaato jirta. annaga waxaanu isku daynaa ilaa iyo intaanu kari karayno in aanu ishortaagno ama aanu dhaliilo dadka ka hadlaya qabyaaladda ka hadlaya. mana jeclin adigoo oo fadhiya gole fadhiya qof weyn oo soo kacay oo microfonka qabyaalad ka yidhi waa naxdin. laakiin qofkaas markuu microfonka istaago dee adigu ma tihid qofkiiyo ma qaban karto. waxaana laga yaaba qof deegaankaaba inuu yahay oo degaankii aad u timi aad martida u ahaydee xafladda kuwa abaabulay inay yihiin. dad dhifahoo farku darisahi waa jiraanoo iyagu lagu yaqaano maxaan ku dhahdaayey sidaa dadkaana shacbigu waa iska yaqaanaa oo iska bartay oo waxyaan kaas waa hebel. laakiin anagu xisbi ahaan ma jeclin dadka maxaan ku dhahdaayey hadallada xanafta leh iyo qabyaaladda qaawan ee muruxsan maxaan ku dhahdaayey mikrofoonada lagumana matelaan. laakiin dee qofku mar hadduu waa qof qolof ka dhacdayoo dee qoloftii dib uguma celin kartid mar hadduu hadalka tuuro. su-aasha kale aan u gudbaya waxay tahay markay xisbiyadiinu gef kala tirsadaan sidee ba u xalisaan? kolley xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadani guddi dhexe ayuu leeyahay oo isaga timaada wixii khilaafaha soo kala dhex gala. inta badanna si fiican bay u shaqaysaa. waxaanuna jecellahay oo ku rajo weynahay inay aanu ku dhammaysano sidaa ololaha iyo doorashada aanu ku dhammaysano. waa dadaal gaar ah oo aanu labadan xisbi gaar ay isu saareen isla garteenna labada guddoomiyena ay sidaa go-aansadeen kuna magacaabeen guddida dhexdhexaadka. rag waaweyn oo culus baa ku jira. waxyaaba badan oo dhacay oo la xalilayna way jiraan. wixii dambena ilaahay naguma keene waa dad u diyaara inay madaxa qabtaan oo ay intaanay maxaan ku dhahdaayey durkin ay halkeeda ku xalilaan. waanu ku rajo weynahay inay sii socoto oo sii shaqayso guddidaasi oo ay ka midho dhasho ujeeddada loo abuuray. ugu dambeyn xasanow, maxaa dadka kula talin lahayd doorashadan inagu soo fool leh weliba ma garanaysaa dee tii madaxweynaha ah? maxaa dadka kula talin lahayd ee aad jeceshahay inaad u gudbiso inay doorashadaas ama kaga qayb qaataan ama maxaad uga digaysaa? marka hore 3 murashax iyo 3 murashax ku-xigeen baa sharxan.
xaq mujtamaca iyo shacbiga waxay ugu leeyihiin inay cod weydiistaan shacbiguna xaq wuxuu u leeyahay kii uu qarto inuu codkiisa siiyo qof walibana maanta kaadh buu haystaa kaadhkaasuunbuuna ku codaynaya waxa weeyaan waxaanu leenahay dadka murashaxiinta ahay ee doonaya inay waddanka hoggaamiyaan inay iyaguna si nadiifa oo xalaala ay u tartamaan oo maxaan ku dhahdayey u tudhaan mujtamacooda ay rabaan inay hoggaamiyaan oo ka ilaaliyaan waxyaabo maxaan ku dhahdayey dareenkooda ama qalbigooda waxyeeli kara iska baddaadee nabadgelyo iyo waxaas shacabkana waxaan leenahay waan u soo jeedinayaa xaq u leedihiinuun inaad codaysaan laakiin inaad aflagaado iyo maxaan ku dhahdaye dhibaato kale iyo xasilooni darro idinkoo cid ku taageeraya ama xisbi isle ku taageer oo taageero xisbi ka wada waxba kordhin maysa waxyeelun bay tahay xaq wax lagugu leeyahay inaad afkaaga iyo adinkaagana dhowrto maalintaa doorashadana qofkii aad u codaynayso aad u codaysid inta ololaha iyo kaambeynka lagu jiro inaad si xalaalaho nadiifa aad ula kaambeyn garayso haddii kaasoo godo inaad kaambeynka ka qayb geshid saasaan kula talinaya mujtamacana ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo nabadiinu ku dhacda inaynu hello cid waliba maxsuulkeeda iyo go-aankeeda ku wada qanaacdo amiin kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed cali xasan gaafaadhi afhayeenka xisbiga kulmiye oo anigoo maxamed kayse aan ku wareysanayay barnaamijka kasmo iyo kaskaaga qaybtiisa qiimaynta siyaasiga inta aynu mar kale isugu iman doono barnaamijkan oo kale waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu